بسم الله الرحمن الرحيم وبسلامة سلام كدب عرب مانت إن أري مرتي الصوماليين عن كود هذا ما ماذا وحده هذا أفلجادو علادنا وحكمت ترت نبضنا ويكا جيسا مرك يقول ريده عن ما هذا عن مقلوب وحياة بري أنا جوج ليبيا يعني لحري حبس الليبي كويا لنا لقي حبس وحا كجرا صومالي بدن iyo Eritrean iyo Sudan dadkan inta badan waxa loo soo xiray waxay ahaayeen adoo waa taqaanaan dad kulligood rabeen inay tahriibaan xabsigii dadka aan isku baranay waxa kamid ahaa wiil Maxamed la yiraahdo Maxamed wuxuu aad u isticmaali jiray kaniinigan la yiraahdo waxaan madax xanuun corona Tylenol ama ibuprofen waxaa jirta marka qola IM la yiraahdo oo maalinta Khamiista timaado oo qofka xanuunsan soo yara wareysanayso kaniinina soo siinayso Maxamed ki marka uu ku badbata Khamiis kasta gacanta u taagtaa soo helay ibuprofenkaas markaan Maxamed isbarno marka wuxuu yirniyo adaa cusub maanta hadii qolada IM ka timaado gacanta taago oo adiga soo ana xanuunsan dheh xagee laga hayaa dil guraana madaxa dheh si aad igu soo qaado yiri Tylenol marka wiilka saaxiibaan noqonay ay haaneen gacanta aan taagtay maalinka Khamiista markay yimaadeen waxaan u tagnay qoladii aligay qol ay fadhiyaan qof dhakhtar iska dhigay oo ku wareysanaa marka xagee laga hayaa madaxa xanuuna is box meeshaan Tylenol iga soo bixisay markaan bixi magaal irmay interview aad mareeda qof ku wareysanaa waxa la iigay nin magaciisa igu sheegay Francesco oo Talyaani ah Francesco bas uu i wareystay wuxuu yiri ka waran noloshiin xabsiga waase waxaan uga sheekay marka dhibaato badan ee xabsiga jirto waxaan irinay waa nala garaaca dadka xanuunsan lama daweeyo shaqo inta la wada lagu soo shaqeystaa la soo aadu dhibaato badan uga sheekay wuxuu yiri birri toolo jimcaha yiri xabsiga waxa soo booqanayo yiri midowga Yurub baarlamaankiisa oo markaas uu madaxweyne ka yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka marka wuxuu yiri markay ka meesha ay soo galaan yiri xirada aad ku xirantihiin aniga waan soo wadaa waxaan keenayo qolka adinka aad ku jirtaan markaan ku keenay la yiraahdo yaa hadlaayo gacanta taago waxaan aan adiga ii sheegayso yiri ayagoo sheeg okay andrew adiga qolka xabsigan ku soo noqdo Soomaalida aan soo noqdo waxaan nimeeyahay bari toole midowga Yurub soo socdo markuu noo yimaado ninka Talyaanigan waa la soo ballamay marka waxaan rabaa inaan dhibteena u sheego هذه دتك waxay dhahan wallahi fikir fiican waay kuwa wada tacbaan ahaay li kuwana dharka ka siibeyna waa u sheegina dhibtana lagu haayo daaya sidii ala hada maray cishi amal ay too la siisay seexanaya iyo wiil dadka xiran kamid ah Cabdicasiis la yiraahdo oo dabeecad ahaan dadku ma bahadlaba habeenkii inta madaxa dhulka dhigto lugaha kor u taagto oo sidii ay u qayliya oo waxa la siraaniga waxba ka qalban ninkii ay yeeray wuxuu baraada balkaalay aanu tagay wuxuu yiri caaw mahmahan ku sheegay wuxuu yiri mahmah in ku sheegay ii sheegay waxay tabaamad wuxuu yiri aflagaado colaad wax kama tarto yiri nabadna way ka geysaa waxaan ula jeedaa yiri hadii maanta birri markay yimaadaan yiri gaaladan midowga Yurub ee aad dhibaatada iyo ceebta nimanka ay nagu hayaan aad u sheegto yiri markay tagaan cid noo harayso waa Liibiyaan yiri marka wuxuu yiri tan ugu aflagaadeeda بدها نقلين يا هبينك حقا waa yara fakiray adi maalinka dhan oo fakiraay subaxii waaga markuu bariyay irideen la soo furay waxa soo galeen midowga Yurub wasiiro iyo xildhibaano qolyooyin kaamirooyin wato idaacadii caalamka Al Jazeera CNN BBC telefishinna badan oo magac ahaan markaas aan aqaan iyo soo wada galeen gabar Lubnaaneys ay wataan oo turjumaan u ah waxay dhaheen hal qof oo Carabi ku hadli yaqaan oo aan wareysanaan u baahana dhalinyaradina xalay waxay ogaayeen moogtaa in aniga aan ku tashanay inaan anigu hadlo waxaan Cabdirasaaq aan noo hadlay waan istaagay gabadhiya markay waxay tir su'aalaha idin weydiina waxay tir maxaad u xiran tihiin waxaan saddex siba waa u xiranahay qolo waxay u xiran tahay ayagoo dal shisheeya sir sharci darro ku soo galaya yaa la soo xiran qolana naftooda ayagoo haligaayo badda isku shubaayo alla soo qabtaan yiri qolana ayagoo magaalada iska socda la soo qabtaan yiri markaas waxaan ka dhigaa in yaani wax dhibaato badan aysan jirin waxay tir waayeen nolosha xabsiga ka waran
وعارني هو أنت أنا ما أنت هدينا اللي والدينا حبسك كبحر المجال إنه لودي قاب عن إنه ولا عن حتى عملنا كان سبت معايا حبس كان وحنكوها يسنا سدح عنطق قد قراع الشر وحنكوها يسنا روح برشة وحنكوها يسنا الشقة والشقة أنا لصيا وصو شقة يسنا مركو هرنتي شقوي جبت لكن شقة حواي انت الله وضع له وصو الشقة اللي بنسود قلها أضو التعبان اللي بيسوي علينا مركو معايا حبس كان نورل في عن يانكوها يسنا وحان إلي هجاميها كعنك الليبي كورنيل معمر الغدافي موادين كالصومالي قاعد يقانا إلي موادين كاللباد الليبي مركو الصومالي هدانها هذا هو شرفنا الليبي واحد بقى ما قبنا مركو وحان هذا نقول محد علينا سراكيش ماشان نقول حيس هذا ينورق عليها أنا وجه ذا مركو حايس بدل وجهي سراكيش الليبيان كويس ده هاي كان مو بلايش يا فرحت قولاد إن يوروب نوبا يا بيمبا من حبسي أمانة أي ضحاي واحد بقى ما قبنا عيدان أنت أصلا مسعني وأنا بحنا عار أنت هذا بحنا سؤال ميدو ويديا حار أذنكم هذا هذا محسن نقص ضمتين وزيرك أريمها دبد الجرمال كنين مركز أي جوابي عيرو حانا هو يعني وزيرك أريمها دبد الجرمال كحانا هو منك هذا هو بيامين أيه قولان رأي يروي حبسي كان صوب وقت وحنا ماشان أني ميدو يري إن أنا خو بينو يري بجد أنا خب حنو dadka soo tahriibay dhaqaale aan ugu tala galnay oo si loogu badbaadiyaa marka hadda qaabka aan ugu jawaabto yiri waxaan ba dareemeynaa dhaqaale aan Liibiya ku siiyeen inay wax fiican ku qabanayaan waana mahadsantahay wax kale oo jecesha u diileen ma jirto waxaan yiri wax kale ma haye waxa maanta waa maalinka ugu horeeyay inay qof Jarmal oo soo hor istaago marka taana waxa ii tahay mudnaan gooniya waana ku mahadsantahay adoo inaga tagay Soomaalidu waxay isleeyihiin ninka hayta waxba ku ballanteynay جو أمان وشيكي وحن 5 دقيقة دمينا مدير نور اللي هجرني كمان شهستي يسراكيش يسوي سعودان صوّد النقطة عبد الرزاق وينك هاي كنا بحالي رمان توحد ربط البوق وصميني هاي حائر الشنا مركب دي مربتي تعبانة هاي إنه مركب حابس يجرنا أرتو حائر شنتان دي مربت ماشي كسيد دابا شنتي اللي يرجرين ما تقانا ها إردك بحر محاك الله رتاي حار انتهينا من النداء إلا ما أنت دبي ومحرنين نيو عيرو الدولة أو حرنتين هالمر يريد إذا كان مفرق لكن هبين كسر الشنان دينا هبين كسر الشنان دينا كل جيل ما شو هذيك دينا إيه بالكالة هذه كانوا أنت إلى بعير هذه كان يريد كبحث كبحث مركب أرطار ماشي عن الصعود ما هنحبس جالسين عن كشاكين وحان الصعود حيتها أفلجات ده علادنا وحكمت ترت نبضنا ويكاج جيسان إنها الدلوع اللي كجرتها وحيتها ما أنت مركز قف عايضة علاد اللي بدي ندين كده حيسي وحبوا ما ذا نبين نبض إدين ده حيسينه واضو مسي مركب ما أنت صومالي هذانا وحان أبضناي قف كستو ضدو أفلجات دينا مركز أو أفلجات دينا عندنا نبض واتكفوا جاني قف كأد أفلجات دينا نبمو قضود وجيس ملحن مركب حن برارجيننا وناج يقروح ذا بسلة إن هذا أفكار برتولن ذاتك آذن عين كيكو عاين عدو صبرت وما تنتين